runtii caawa sida ay sheegeen madaxweyneyaalkii iga horreeyey waa habeen taariikhi ah oo mudan in la sheego mar kasta sidaas ay tahay waxaan idhaahnaa annaga riyonka wali erey kooyey kulan dhalaas kulankana qayra dhale xisaabta ku darsada barka isu imaaday haddii la yidhaaho kulan baa dhacaya waa laisu imaana haddii la isu yimaadana ibaatinkaas qayr buu dhalaa imaatinkii ha la isu imaadadii inta la isugu yimid qayrkii ay dhashay yaan caawa u fadhinaa waxaa sharaf ah in madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa aan shirkii intaan ku qabannay dacwadii aan u gudbinay codsigii inay nagala soo qaybgaleen ay ajiibeen inuu ku dhammaado si midnimo ah wada shaqayn ah walaalnimo ah soomaalinimo leh isu tanaasul leh saa ogtihiin maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxay u baahan tahay waa xilli kala guur ah waa xilli daruufo badan ay haystaan shacabkii Soomaaliyeed ugu yaraan cimiladii ay isbedeshay oo hadda ay dayr tahay ay fatahaado socdaan webiyaal fatahayaan oo shacab Soomaaliyeed ay biyo ku dhex jiraan marxaladda maanta lagu jiro oo saas u adag iyo shaqooyinkii fiicnaa oo joogtada ahaa oo la soo maray ee Soomaali ay soo martay maanta waxay u baahan tahay oo loola bixi karaa oo looga gudbi karaa wadajir iyo in gacmaha la isqabsado dalka iyo dadkana loo tuuro si Soomaalinimo ah oo walaalnimo ah islaamnimo ah la isu raaco madaxda inta joogto oo heshiisay iyo madaxda kale oo Soomaaliyeed oo maqan meel kasta ay joogaan waxay u baahan tahay in arrimaha Soomaaliya isku fikir laga noqdo siyaasad ha noqoto dhaqaale ha noqoto doorasho ha noqoto horumarin ummadda ha noqoto Soomaaliya maanta waxay rabtaa midnimo iyo wadajir iyo isu tanaasul iyo isu sabir iyo isu samray u baahan tahay haddii marka intaas la sameeyo daruufaha hor yaallo dhan waa laga gudbaaya talada Soomaaliya intaanada iyo in kaloo naga dambayso yay u baahan tahay inay meesha ay maanta joogto ka sii gudbiyaan waxaan rabnaa go'aanka fiican iyo fikirkan aan samaynay oo soo baxay shirka intaanadii hadda inta joogtay oo noocyada kala duwan lahayd iyo inta naga dambayso nala qaadan doonto inta dhimanna inaan wada dhammaystirno oo aan Soomaali jid fiican aan u samayno si ay u tihiin dadka Soomaaliyeed baqrintaa iska badan horey baan u sheegay shakigaa iska badan waa la istuhumaan laakiin waxaa jirto oo muuqato in waxa laga baqaayo oo dhibaato ah ilaahay nooma keenay aysan dhici doonin sida hoggaanka maanta dalka ugu sarreeyo go'aanka siyaasiga ah oo ay qaateen oo ah in dadka Soomaaliyeed la isku wado oo annagana aan kow ka nahay ay u dhaqan gasho yay tahay tan hadda aan inta u fadhino waxaa kaloo ogaanaysaan faa'iidada ugu weyn oo maanta aan hayno oo shirkan ka soo baxay waxaa maanta hartay oo dhuusamareeb iyo galmudug ku hartay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ma wada shaqeeyaan maantay hartay waa maqlaysaan saciid suu sheegayo si fiican baa u fahamtay maanta wada shaqayn fiican baa jirto dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah si fiican bay wada shaqeeyaan dowladda Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah waxaan rabnaa dowladda xildhibaanada iyo madaxdooda guddoonkooda iyo guddoonka labada gole iyo cid kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliyeed oo madax ah ayadan inaan fikirkaas wada qaadano wada shaqaynta ah iyo sidii marxaladdan hadda lagu jiro looga gudbi lahaa
sida uu sheegay Saciid waa runtiis aniga naftirkeyga dhowr jeer baa xildhibaan soo noqday ilaa iyo 12 sano waxaan ku jiray siyaasadda Soomaaliya marxalado kala duwan xildhibaan wasiir intaba waa soo ah markuu waqtiga dhamaaday walwalba ugu badan oo imaanaya waxaa waaye maxaa la noqon doonaa xilkan ilaahay baa bixiyo wax la noqonayo male adinkaa dalka madax u ah xildhibaanada adinkaa siyaasiyiinta ah adinkaan idin naqaanaa adinkaa shaqo fiican soo qabtay waana idin kala shaqayn doonaa yuusan walwal jirin darajada ilaahay baa bixiyo annagana dadkii saaxiibadiina ahaa oo kulliyigiina ahaa oo la soo shaqaynaya aniga hal sana xildhibaannimo iyo wasiirnimo moogi xildhibaan iyo wasiir baan ahaa waa dareemi karaa marka dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan siyaasi laga wada dhigi karin ninka maanta xildhibaankiisa oo wasiirka iska baxma sahlan maxaa yeelay dabakaayana ma furan karo siyaasadii warwayn ku jiray madaxweynaha Soomaaliya hore u sheegay oo wuxuu yiri dhibaatadan haysata siyaasiyiinta Soomaaliya oo badatay kun wasiir oo wasiir kale wasiir sii rabo wasiir kale wasiir sii rabo marka waxaan rajaynaynaa insha Allah isfahanka fiican iyo go'aankan midnimada leh oo galmudug ka soo baxay inuu noqdo mid Soomaaliya oo dhan ay isku raacdo oo la isla wada qaato midka dambe shirka dambana uu noqdo kii lagu gabagabeyn lahaa oo dadka dhan ay ku midoobi lahayn insha Allah waxaan rabaa si gooni ah inaan ugu mahadceliyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya hogaaminta fiican iyo bisaylka iyo sida uu tanaasulka iyo isku wadka ah iyo dulqaadka uu sameeyey madaxweynaha aad ugu mahadsan yahay sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowladda goboleedka galmudug iyo xukuumaddiisa iyo shacabka reer galmudug oo ayagana sidaasoo kale annaga beriba 15 maalin wax aan dareennay ma jirto oo waxaan inta lagu sheegi karaan ahayn wax kale oo dareennay wax kale oo laga maqlaan waxaan inta lagu sheegi karin bas aan dareennay ayadana waa laga soo tawaabshay samarka dowladda soo noqday aad iyo aad u mahadsantihiin guul iyo sharaf aan idin rajaynaya